Macalimmadu wax ka dhigta iskuul gabdhaha loogu talagalay BES ayaa waxa ay safar u waday ardaydii waxa ayna raaceen bas ama BL waxayna aadeen mid ka mid ah goobaha dalxiiska loogu talagalay. Ugu horreyn inta aanan bilaabin muuqaalka, daawada like saar muuqaalka haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar. Muuqaalka furo calaamadda gambaleelka ah si uu kuu soo gaaro muuqaal waliba aan soo geliyo janaalkayga. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaad daawada YouTube janaalkayga. Waxaan maanta inii hayaa qiso aad u xiiso badan waxayna ka hadlaysaa in laga dhowrsado xaaraanta. Macalimmad wax ka dhigta iskuul gabdhaha loogu talagalay BES ayaa waxa ay safar u waday ardaydii waxa ayna raaceen bas ama BL waxayna aadeen mid ka mid ah goobaha dalxiiska loogu talagalay. Gabdhihii mid ka mid ah ayaa waxay aaday meel ka fog gabdhihii kaleeto. Markii la gaaray waqtigii safarka lasoo noqon lahaa, dhammaan gabdhihii kaleeto waxa ay isku soo buuxiyeen baskii. Gabartii maqneed markii ay maqashay codka baska, wax waliba oo gacanteeda ku jiray waa ay tuurtay, waxa ayna ku soo daba oroday baskii iyada oo u qaylinaysa war isugaay. Laakiin qof maqashay ma leh, qaylada baskiina wuu ka qarsoomay. Qof maqashay ma leh qayladeeda, baskiina wuu ka qarsoomay. Gabartii socodkeedii ayay sii wadatay iyadoo cabsanaysa. Markii la gaaray habeenkii oo ay maqashay codka bahalo, waxaa ku sii batay cabsidii. Isla waqtigaas waxa ay aragtay guri yar oo nal ama iftiin yar ka shidan yahay, waana ku farxday. Waxa ay aaday dhinacii guriga. Gurigaas waxaa deganaa wiil yar oo faqiir ah. Waxa ayna u sheegtay qisada ku soo dhacday iyo sida ay uga hartay gabdhihii fasalka la dhigan jiray. Waxa uu yidhi, okay, iska seexa caawa inta, beritana waxaan ku geynaa bosteejada laga raaco basaska si aad u tagto xaafadiina insha Allah. Waxaad seexataa sariirtayda, anna waxaan seexanaa dhulka. Gabartu waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan, ka soo jeeda qoys hanti badan iska haysta. Qof waliba oo single ah wuxuu jeclaa inuu guursado. Gabartiina cabsida hayso darteed maba seexan habeenkii oo dhan. Waad dareemi kartaa guri aan gurigaada ahayn hurdo kaaga imaan mayso. Waxa ay marar badan wiilkii guriga lahaa ay aragtay oo soo kacaya, kitaab akhrisanaya, haddana daminaya nalkii yaraa oo u shidnaa oo ahaa shumaca la shito. Waxa uuna ku daminayay farihiisa ilaa ay ka gubtaan, waana ay la yaabtay waxa uu sameynayo. Waxa ayna uga shakiday in uuba wiilkan uu yahay jin yariis ah. Subaxii markii la gaaray ayay aadeen bosteejadii laga raacayay basaska. Kadib markii ay tagtay gabartii xaafadoodii, waxa ay uga sheekaysay qisadii wiilka ay soo aragtay aabaheed. Aabihiina waxa uu jeclaystay inuu soo ogaado wiilka sababta uu farihiisa u gubay. Habeenkii dhan uu soo kacayay. Waxa uu tegey kadib waxa uu arkay shantii farood oo wiilka ka duuduuban maro ama faashad yar. Waxa uu weydiiyey maxaa kugu dhacay, farahaada ku dhacay. Wiilkiina waxa uu ku jawaabay habeen horeeto waxa ay timid gabar lumsan, waxa ayna seexatay gurigayga. Mar walibana shaydaan ayaa ii imaanayay isagoo ileh qoftan cadiinta ah ka faa'iideyso. Anina waxaan soo qaaday kitaabka Quraanka si aan iskaga buriyo shaydaanka, laakiin wuu iga tagi diiday. Shaydaankii waxa aana gubay shantayda farood si aan isku xasuusiyo xanuunka cadaabta Alle. Kadibna waan iska seexanay. Sidaasna waxaan u sameynayay ilaa shaydaankii uu iga tago, shantayda faroodna ay ka gubtaan. Odayga ayaa wiilkii ku yidhi kaale i raac gurigayga. Waxa uuna tusay gabartiisii. Waxa uuna ku dhahay ma taqaanaa gabartan. Waxa wiilkii dhahay waa gabartii habeen hore seexatay qolkayga. Kadib odaygii wuxuu dhahay adiga ayaan ku siiyey oo hadda laga bilaabo xaaskaada. Wiilkii waa uu farxay. Faqad qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam innaka lan tadaca shay'an lillaahi caza wajalla ilaa badalaka allaahu bihi maa huwa khayrun laka minhu. Shayga aad ilaahay dartiis uga tagto, ilaahay wuxuu kuugu bedelaa mid ka fiican oo ka khayr badan. Wiilkii waxa uu u sujuuday Allah subxaanahu wa tacaala sababtoo Alle waxa uu ugu bedelay xumaantii uu ka dhowrsaday xalaal uu iska rifan karo. Intaas ayay ku eg tahay daawada qisadeena maanta. Waa ku mahadsantahay daawada haddii aan lala socotay ilaa iyo hadda.